kaale caawo marka rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam waa isaga iyo saaxiibkii ma aha 600 kun sida nabiyullaahi muusa waa labo ilaahay baa inooga warramaya weliba waa labo oo waqti ammaana aanan joogin adduunyada oo dhan ay raadinayso qoortiisa labadooduba waxaa la saaray 100 neef oo geel ah qofkii Muhammad soo qabtaa sallallahu alayhi wasallam in la siinayo 100 kun oo neef magaaladii oo dhan baa markaa shaqo tagtay waxay ka raadinayaan bad iyo berri saxare iyo beled meel walba ka raadinayaan waa labadooda god bay ku jiraan godkii ay galeen ayaa dadkii raadinayay soo gaaray meesha kore ayay fooleen iyagana godkay ku jiraan waa labo Abubakar waa ooyaya radiyallahu anhu wa ardaah muxuu la ooynayaa macabsi uu baqayo oo uu nafsadiisa noloshiisa uu baqayo maya wa saaxibu Muhammad sallallahu alayhi wasallam maxaad u malaysaa rasuulka khayru khalqi ilaahi qofka saaxiibka la ah ya iimaanka Abubakar radiyallahu anhu wa ardaah haddii la saaro miisaan caalamka oo dhan bacda ar-rusul ya caalamka oo dhan khalaa'iqda oo dhan rususha marka laga reebo haddii la saaro miisaanka kale waxaa rajaxmaya oo cuslaanaya iimaanka Abubakar radiyallahu anhu wa ardaah muxuu la ooyayaa marka ninkii oo ilmadu ay ka daadanayso ayaa rasuulku wuxuu dhahayaa maxaa kaa oohaysiinaya ya Abubakar wuxuu leeyahay nafsadayda u baqi maayo rasuulullah ya rasuulallah laakiin waxaan u baqayaa waa nafsadaada aniga hal qof ayaan ahay haddaan dhinto diintu ii jiisi mayso diintu ii baabi'i mayso islaamku ii guri maayo laakiin adiga haddaad dhimitid gadaashaa wax ilaahay caabudaya male ummad dhan baa gadaashaa baaba'aysa adaan kuu baqayaa wax walba xataa nafsadiisii ogow Abubakar wuxuu radiyallahu anhu ardaah rasuulka ilaahay buu ka jecel yahay maanta haddii la yiraahdo yaa dhimanaya midkiin wuxuu leeyahay anaa nafsadayda kugu furanaya bi ummi wa abi anta ya rasuul allah marka isagaa isku furanaya waa fidihiisu noqonaya marka walaalayaal wuxuu leeyahay maxaa kaa oohaysiinaya adan ku baqayaa buu yiri rasuul allah markaasuu dhahayaa ya Abubakar فما ظنك باثنين الله ثالثهما حاضو مليسا لبا مؤمن والرسول يصديق او الهي ومعود يهي الهي هدي الهيستد يا كامقن يا الهي قلاشي كو قرقارايا محاضو مليسا لبا مؤمن كوا علوس يهي halka mu'min adduunka oo dhan waa ka culisay soo ma ogid waa 7 sama iyo 7 dhul iyo inta u dhaxaysa ilaahay in uu rogo way uga fududahay dilka qof mu'min ah mu'minku waa culus yahay fama dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma maxaad u malaysaa laba mu'min ah oo sidaa u culus ka culus adduunkan oo dhan oo ilaahayna uu saddexeeyo laa taxzan ina allaha macana ilaahay baa nala jiray ya Abubakar laba ha u malaynin inaan nahay ilaahay baa na saddexeeyey marnaba ha murgin ilaahay baa ka sheekeynaya qisadan dhacday kalsoonidan iyo siduu ilaahay u badbaadiyey marka madiina la yimaado dagaaladii ayaa la guubaabinaya saxaabadii alla guubaabinaya alla boorinayo dhiirigelinaya oo dhahaya ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah haddaad u gargaari weydaan Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa lala hadlaya waa muhaajiriintii iyo ansaartii reer madiina deganayd ayaa la leeyahay haddaydan u gargaarin oo aydan garab istaagin ku caawinin diinta xoojinin haddaydan kaabin lafdhabar u noqonin ya haddaydan sunnadiisii qaadanin haddaydan raacin haddaydan rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisii akhlaaqdiisii haddaydan noolaynin ya amarkiisa haddii aydan yeelin
wuxuu idinla yimaado aydan qaadanin, wuxuu idinka reebo haddaydan ka harin, ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah. ilaahay baa u gargaaray hadda ka hor. maanta idinkoo 100,000 ah haddaad u gargaari weydaan, garab istaagi weydaan, faqad nasarahu allah, ilaahay baa u gargaaray. goorma? id humaa fi lgaar, maya ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah id akhrajahu aladiina kafaruu, kuwii gaaladii markay gurigiisii kasoo saareen. thaniya اثnain, iyagoo laba ah. id humaa fi lgaar, godka markay ku jireen oo ay gaaladii cadowgii raadinaya korkooda ay taagnaayeen, ayuu ilaahay u gargaaray. id yaquulu lisaaxibihi, mar uu ku dhahayay rasuul sal ly slam saaxiibkii ababakr radia allahu canhu wa ardaah, laa taxzan ina allaha macana. ha murgin, hana welwelin, hana baqi mayside, ilaahay baa maceene eh. ina allaha macana, maxaa ilaahay se ugu gargaare? faanzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudin lam tarawha. eeg, wuxuu ugu gargaaray طuma'niina, sakiina, xasilooni ayuu ilaahay ku dejiyey rasuulka iyo saaxiibkiiba. deganaanshaa la siiyey. faanzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudin lam tarawha. ciidamo aydan arkaynin ayuu ilaahay ugu gargaaray. malaa'ig way arki waayeen. ababakr eeg, wuxuu leeyahay ababakr radi allahu canhu ardaa, haddii midkood uu hoos soo fiirin lahaa, yah wuuna arki lahaa. wuxuu yihi namayn arkeene haka murgin arrinkaa. maxaa yeelay rasuulka waxaa la tusay ciidamadii, malaa'igtii. malaa'ig baa qarinaysa, waxba arki mayaan, indhahoodaa la daboolay, waxba ma arkayaan. xataa hadday godka galaan, godka labada ruux ay ku jiraan hadday galaan ma aanay arkeen. ciidamada ilaahay cajiib waayo. tala saarashada waa kaa. yah wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla. ilaahay wuxuu yeelay dadka kelimada iyo talada iyo xoogga iyo quwadda kuwa gaalada ah, xuub caara caara mid hooseysa ayuu yeelay. daa'iman mu'minkaa sarreeya. addoontii allah iyo addoonkii allah ma aaminsantihiin sidaa? iyagoo laba hadduu ilaahay u gargaaray, magaalo oo dhan maka iyo gaaladii kufaar quraysh oo dhan buu ilaahay uga gargaaray. ma ku gargaari weynayaa adiga marka, adigoo mu'min ah? yah daa'iman mu'minka maciisa allah ah. macaaga ilaahay ma yahay? ma tahay mu'minka ilaahay maciisa uu noqonayo? ma tahay? waxa la isku dhaafay waa ka, waa iimaanka, waa qalbiga. iimaanka weeyaan. ma u gargaartay rasuulka sala allahu alay slm? ma u gargaartay ilaahay? ilaahay wuu kuu gargaaraya. waktiga abaartii, waktiga aaranka, intuba waktiga caafimaadka, waktiga xanuunka, intuba culayska iyo fudaydka, intuba habeen iyo maalin, har iyo habeen, mar walba nabad iyo colaad, intuba ilaahay ma u gargaarta? mise sida dadka iimaankoodu daciifka yahay uu hooseeyo, waktiga dhibka kusoo gaaro unbaad cabaadaa, hoogayay ba-ayay aad qaylisaa. waktiga xooluhu ku dhalaan oo ilmuhu kuu koraan oo barwaaqada aad ku jirtidna waayah waad iska maaragtaaye ilaahay waad ilowdaa. anna waxaan kuu sheegayaa madrasatu moxamed ee kuu sheegaysaa addoonkii allow, addoontii allay, waktiga barwaaqada waa waktiga ugu daran oo insaanku uu u baahan yahay khaaliqiisa la soco. sababtoo ah nicmada aad ku ilowday ilaahay, ilaalin bay u baahan tahay. ilaahay xaggiisay ka timid, waa lagaa goyn karaa, sow ma ogid, waa imtixaan. ilaalisay u baahan tahay. nimcada inay kuu daa'imto, kuu waarto, lagu ilaaliyo, lagu xifdiya u baahan tahay. adigu ma xifdin kartid. markii horena ma aadan keenin, haddana ma haysan kartid. ya marka waxaa u baahan tahay, xaggaasaa u baahan tahay. walaalayaal, haddaad nolol wanaagsan adduunkan ka rabtaan, dhaxalkan aynu ilaalino. waa hal dhaxal ah oo ah in ilaahay lagu kalsoonaado, ilaahay talada la saarto, oo eeg aan u gargaarno ilaahay idaylkeen. ilaahay waa casiiz, waa haalib, waa qaahir, waa qahaar, laakiin haddana gargaar buu u baahan yahay. gargaarka aynu u gargaaraynaa, innagaa nafsadeena isu gargaarayna. waxa waaye waa kuu dhahayo, yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum.
haddaad u gargaartaan ilaahay, ilaahay wuu idin gargaarayaa. haddaad u gargaartaan ilaahay, ilaahay maanta waa hub iyo maaragtay uguma gargaareyno, laakiin maxaan ugu gargaareynaa? hadalkiisaanu qaadanaynaa. wuxuuna faray waynu yeelaynaa, wuxuu naga reebay waynu ka haraynaa. wax walba oo ilaahay hogaankaanu u dhiibanaynaa samcan wa taacan. wax walba oo ilaahay uuna faro, wax walba uu naga reebo, ilaahay markaasuu noo gargaaraya. mataqaanaa gargaarka ilaahay, ilaahay siduu anaga noogu gargaaraya. markaan sidaa yeelo wuxuu noogu gargaarayaa nolosheena addunya o dhan buu ilaahay u gargaarayaa, teena aakhiro. haddii aad ilaahay u gargaartid, guurkaaguu ilaahay u gargaarayaa, garabkaaguu ilaahay istaagayaa. zawjo saalixa ayuu ilaahay kugu irsaaqayaa. ilaahay isagaa qalbiyada islaaxayso ma ogid? ilaahay islaan wanaagsan, xaas wanaagsan buu ilaahay ku siinayaa. awlaadu ilaahay kugu gargaarayaa, baariyaal buu ilaahay kaaga yeelayaa. waxbarashaduu kugu gargaarayaa, qalbigaaguu ilaahay gelinayaa. mid ku anfacdo intifaaca leh nafsadaada iyo ummadda aad ku anfacdid buu ilaahay ka yeelayaa. sow ma ogid? haddaad ilaahay u gargaartid, ilaahay wuxuu kugu gargaarayaa caafimaadkuu kugu gargaarayaa. caafimaad daa'ima ku siinayaa ilaahay. wixii yaree kusoo marana ilaahay waa dembigaagu ku dhaafayaa. haddaad ilaahay u gargaartid soo maaha, ilaahay culays oo dhan buu kaa qaadayaa, murugoo dhan buu ilaahay kaa dejinayaa. war ilaahay maxaa nooga baahi badan? yaa ayuha annaas antum lfuqaraau ila allah. ilaahay baa u baahan tihiin. idaylkiin waxaad u baahan tihiin waa ilaahay. in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum, falaa gaaliba lakum. haddii mar ilaahay idin gargaaro, noloshiinan uu u gargaaro ilaahay, guurkaaga hadduu kugu gargaaro, falaa gaaliba lakum. cid wallahi kaa guulaysanaysa male. habar walbaa kaama guulaysanaysa, shaydaan walbaa kaa guulaysan maayo. reerkaaga wax soo gelaya male. ya reerahan fitanta ilaahay geliyey ee maaragtayy dhaxalka rasuulka guryahan ku burburay, xaqi iyo maaragtay waajibaadkii ku dayacmay. waxa waaye hadduu ilaahay kuu gargaaro, in yansurkum allahu, oo weliba guryihiina dhexdiisa hadduu ilaahay idinkugu gargaaro, falaa gaaliba lakum, falaa gaaliba lakum. ilaahay wallahi inaanu wax ka qaalib noqonayaa inaanu jirin guushaas ilaahay. awlaadaada hadduu ilaahay kugu gargaaro, baariyaal kaa yeelo, xufaad kaa yeelo, ducaad uu kaaga yeelo, falaa gaaliba lakum abadan. ibliis walaa gaal walaa calmaani walaa haddii ilaahay kugu gargaaro run inaad sheegtid daa'iman, falaa gaaliba lakum. xalaal quudad hadduu ilaahay kugu gargaaro, oo xalaashaas ilaahay inaad quudatid uu garabkaaga ku galo, falaa gaaliba lakum. cid xaaran ku cunsiin karta male. ya hadduu sacaado iyo farxad, nolol wanaagsan, uurkaaga qalbi wanaagsan uu ku geliyo, falaa gaaliba lakum. laakin wain yakdulkum, hadduu ilaahay garabkiina ka baxo oo aanu idin gargaarin, ya faman tha aladii yansurukum min bacdih. yaa idin gargaaraya? cid idin gargaaraysa male. marka daa'iman aynu gargaarka ilaahay gaashaan ka dhigano. barnaamijkeenu waa dhaxalka rasuulka suuban sala allahu calayhi wasalam. habeen walba waxaynu ku heshiinay hal khuluq ah in aan soo qaadano. halkaas khuluqa aan qalbiyadeena ku noolayno. dhaxalkii dhalinyaradeennu waa ka tageen. maanta yaa la tala saartaa? u fiirso, markay ciddi yar lagaa qabto yaa la xusuustaa marka ugu horeysa. xataa sheekh iyo iska dhaaf iyo diine isbitaal ayaa la xusuustaa. aw ilaahay. rasuulkan uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam, waidaa sa'alta fas'al illaah, waida istacanta fastacin billaah. haddaad wax weydiisanaysid kaalmo, ilaa waad baahan tahay, daciif baa tahay, ilaahay weydiiso. waida istacanta fastacin billaah. haddii aad kaalmo doonaysidna ilaahay weydiiso. wax walba ilaahay, maxaa yeelay ilaahay waa nagu filan yahay. aad iyo aad buu ilaahay noogu filan yahay walaalayaal. eeg ilaaha awoodda leh. xalaqadii ugu horeysay ee barnaamijka athiqatu fillah, 4 xalaqee wada socota. xalaqadii ugu horeysay ayaynu kaga soo hadalnay ilaahay iyo awooddiisa. ilaah aynu tala saaranayna awooddiisa intay la eg tahay. wuxuu leeyahay samaawaadka 7 ah iyo dhulalka 7 inta udhexaysa ayuu leeyahay. hantida ku jirta milkigeeduu leeyahay. arrimaheenoo dhan, walilaahi ma fi samaawaati wama fi lardi wa ila allahi turjacu lumuur. ilaahay fi samaawaat, samaawaadka 7 ah
iyo waxa ku jiro oo maaragtay milki ah, hanti ah, dhulalka waxa u dhaxeeya ilaahay baa leh. haddana eeg arrin walba baahideenna, baahi walba, arrimaheena arrin walba isagaa gacanta ku haya, isagay u noqonay. wa ila allahi turjacu lumuur. ha marka UN iyo gaal iyo maraykan iyo oroba, reer galbeed maxay inoo hayaan marka? maxay inoo hayaan? soomaalay waa iga dardaaran, waxa idiin soo gudbinaya dhaxalka rasuulka maanta waa madrasatu Muhammad sala allahu calayhi wasalam. meelaha aad ku nooshihiin adduunkii oo dhan baa tagteene ilaahay tala saarta. xaalkiin wax hagaajin kara waa allah, awlaadda wax idin hagaajin kara waa allah, waxa mustaqbal idin siin kara waa allah, wax baahidiina oofin kara waa allah. gaal ma aha, gaal tiisuu maaragtay oofin la-yahay, tiisuu meel u la-yahay, waa baahan yahay, adduunyo unbuu yaqaanaa. reer aakhiraatihin, aakhira ladin sameeyey. ilaahay aynu ka baqno ideelkeen, ideelkeen aynu ilaahay ka baqno. ideelkeen culays baa ina saarana, culayska aan ilaahay maaragtaaye haynoo fududeeya, ilaahay aan hoggaan ku dhiibano. walaalayaal, ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed culayska allah ka qaado, culayska saaran allah ka qaado, albaabada khayrka allah u furo. inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo, inta xabisida ku jirta allah ka soo saaro, inta maqan waa la kala maqan yahay, waad ogsoontihiin. intay dad isugu jecleed baa kala maqan, waxaa kala maqan dadkii isqabay